arrintaas waxa weeye markii guumaysigu uu noo yimid wuxuu shirar la geli jiray odayaasha sidoo sheegay aqoonyahankii markii dhaweyto suldaanadu ka dhamaysan jiray wax la yiraahdo waan ilaalinayaa waxana waan siinayaa iyaguna way ogolaan jireen kadibna saasuu ku soo degi jiray waxaan la yaabay habeenkii dhaweydee Muuse Biixi ay kulmeen Axmed Abi sidii un baahayd halkii un baa taaganahay wax isbedel oo inagu dhacay ma jiro waxa weeyaan dad balan ku socda oo nidaam ku socda iyo dad sugayay in dad nidaam u yimaadaan ba hadiya jeer kulmaya sidaas dhulkeena lagu qaadan jiray maanta lagu qaadanaya marka waxaan la yaabay oo isweydiiyay maxay noo soo biiray 200 sano haddii siyaasigeenu sultaankii 200 sano ka hor uu la aqli yahay oo meeshiina la fadhiyo maxay noo soo kordhay baan isweydiiyay habeenkii uu shirku dhacay ama ay saxanayeen marka waxaan jeclahay inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan jalanjiyada amba taxadiyaadka ee nagu meersan Soomaaliya iyo Djibouti waxaan u qaybin doonaa labo kuwa gudaha inaga haysta iyo kuwa dibadda inaga imanaya laakiin culimada istiraatiijiga waxay dhahdaan jalanjiyadu had iyo jeer waa labo waa mid naajara oo dabiici ah oo adigu aad shaqo ku lahayn inaad ilaahay kugu abuuro meel baraf badan ama meel saxara ah oo wax ka soo baxay aysan jirin amba in lagu abuuro meel barwaaqo roobku kala go'ay sida meesha aan fadhino kale iyo meelaha Afrika bartamaheega adigu ma dooran waa iska xaragtay marka taasi waa rabbaani waa dabiici midna wax weyn bini aadanka sameeya jalanjiyada isaga ka imataa sida maanta ka dhacday dhulkeena oo annagu aan marinay wixii geel la oranayay kadibna marna aan abaar la ooyeyno marna daadad iyo biyo naqarqiyaan la ooyeyno marka jalanjigu labadaas u qaybiyaan xidhadan waa dabiici amba waa rabbaani midda kale waxa jira lafaleeyeen jalanjiyadu lafaleeyeen lafal noocyii koos waxa midda koobaad ka ah waxa weeyaan waa midda la yiraahdo jalanji aanan ku dhibayn kana keensanin inaad shaqaysatid waxa dhada jalanjiga qofka siixiya مثلا wadannada bartamaha Afrika ku yaalo kale dhulka barwaaqada ah oo xataa cambadii iyo geedii barwaaqadaha ay si waxshi u baxayaan qofka shaqadii ma shaqaysanayo waxa ka dhigtaa qof iska fadhiya jalanji bad ma dareemayo waxa dhada mustaqir mid kale waxa jalanji qofka dilaa jalanjiga qofka dila waxa kamid ah kuwa wadannada askiimowga kale dadka haysta qofkii horumar ma gaari karayo waxa ka adag anaka Kanada kale waxa jira meelaha dadkaasi degan yihiin oo noloshii ay la falgali kari laayeen noloshii baa ku xoog badan way ka adkaatay ka saddexaad waxa dhada ka keensan karaya inaad horumar samaysid waa midda ku kalkilinaya ee ka cadaysiinaya ninka dhigaya ku dhaqaajinaya jalanjigaasi baa muhiim ah anaga markaa waxaan eegi doonaa kana haysta mandiqadeen waa kee saddexda ay culimada istiraatiijigu qaybiyeen maka baqtiga ah oo qofka iska hurdaya maka ku kalkilinaya ka cadaysiinaya mise waa ka ma aragtay ku dilay okay walbaabka ka galeynay weeyaan xagga istiraatiijiga jalanjadan haystaan waxaan u qaybiyay labo dibadda iyo gudaha soo koobaya lix baa gudaha inaga haysata ta koobaad ee gudaha inaga haysata waxa weeyaan waa jalanjiga la yiraahdo inaan fahansanayn inaan wali aan gaarin mafhuumka dawladnimada dawladii maxay tahay shaqo isku malihin wali inaan been isku sheegno ma anu waxaan aaminsanahay reer Djibouti reer Soomaaliya meesha doon hadda ganaadan iyo dawladii wali isma taaban isma salaamin dawladnimada waa meel la gaaro ma aan gaarin markaasi taasi waxay noo keentay inaan marka aan dawlad helno ay noqonayso wax qofku leeyahay sharikad ay noqonayso shakhsiga uu qaadanayo oo geeli aan lahayn iska noqonayso dawladdu marka dawladihii hore oo qofku lahaa ayaan dhawtay waxaan ka fikirayaa oo guriga fadhiya raggan maanta isla cabaadaya Muuse Biixi Ismaaciil Umar iyo maxaa dhada Xasan Sheekh naagaysa siinayeen wax isku dhisayeen laba sano ka hor dumar baa isku siiyay waa la isla fadhiyeen waxaan maalintii kelmadan qabtay waxay ka tageen shaqadoodii odayaal bay noqdeen dhaqaaleed wuxuu ku leeyahay nasiya kana wuxuu yiri waad heshiin kana gabadhu bixinaya shaqo kuma lahayn kana wiilku doonay shaqo kuma lahayn hatta wixii dhan la qaldaya kuwii sida isku siisiinayba laba cisho ka hor bay isla fadhiyeen haddana cishadii saddexaad waxaan aragnay Muuse Biixi oo ka dhacay magaalada Addis Ababa oo badii bixiyaba
labadii reer kalena way caroodeen bay ka xabidhoodeen suubada u bixinaya oo maad ogeyn mima ogeyn haddaad ogeyn dawada qan baata haddaad ogeynna waxa ma tihid waa labada midkoodu waxa mukhaabaraad baan leenahay sirdoon baan leenahay dawladaan leenahay dawlad dadka islaanta yar oo baagiyaha iyo nin caybinaysay iska hor fadhida way dhageystaan waxay ku sheekeynayso waxay garan waayeen inuu musabixi ku socdo Addis Ababa oo soo saxay heshiis garan waayeen خاصة دولة إنكم بتقنين رجوتية اسمعوا عمر قال بقول كيف سديت المشاركة ضد كلا حولوجا سير بحكم بحيا وردان يا سردان محوق قهوة هي إنه مسابحي هل كأول شيء صعده مركز سوا بحاسوا بداسر مركز عرفت واحد ترى هذا هدأ أكتهنا فتلك مصيبة هدأ أجينا فالمصيبة أعظم هدأ أجين مصيبة بكس يوي ببلد مركز تاسيوا أرت دولة المدو واتاس هل كاس إنك تاجنت هاي واحد هذا دولة وبروبلم كوين إنها يستم مشكلتنا labaad ee gudaha inaga haysatay waxa weeyaan walaalayaal marka u fiirsatiin dawladnimadii inaga burburisay waxa loo yaqaano sidii loo heshiisiin lahaa wuxuu ilaahay inaga dhigay iyo waxaan rabno ilaahay wuxuu inaga dhigay reero wajacalnaakum shucuuban mahayt wa qabaa'il ilaahay baan naga dhigay marka dooranay may dawladnimada anaka dooranay inaan dawlad noqon anaka dooranay sidee u heshiisiinaa labadaas waxaan nahay iyo waxaan rabno waa ku fashilanahay 6 sano 6 sano waan ku fashilanahay inaan sameeyno waxaan rabnay laakiin waxa ka adag waxaan ahayn baa ka adag saadaradeed baan dawladii aan dhisnay bay dumaysaa waxa duminaya waxaan nahay lianna waxaan ka guuri kari laanahay xaaladda aan waxaan u bixiyay xaaladda reernimada waa xaalad xayawaaniya soo xayawaanku reeramaha geel iyo lo iyo ari iyo xayawaanimo xayawaan laakiin dawladnimadu waa xaalad insaaniya waa xaalad bini aadanimo ولذلك waxay yiraahdeen culimadu abqarinimada raganimada bini aadamku meesha ugu sareysu gaadhay wax weeyaan inuu dayax tagay ma inuu dawlad sameystay وإنه دولة سمايست مركا أن كندا كبحون بابور رحوته وإلا مريكا كتجيو وقفنا إلى هذه واحد هذا ودولة بلا سميشان يوروب بعد مركز سمارسة ودولة بلا سمي جاينا محوسة مش دولة سمايست جبان ودولة أنا كم حنا قفشلان دولة أنا قفشلان غير كيبا كات الدولة غير كيبا الدنيا الدولة وهنا تاسم جالانجي كلا بعد الناس كصدحات أنا جالانجي كصدحات إنها يستوي حويان ولا لك كهذا ويحول صدق عدو مالنا أحمد أبي مصبحي يبحول شاب أنا أقول ما أمسني شباب إنه يجهلان شيء أدق شبابك وحويان وعذر ويان شبابكم عذر معها وسانتونك عذرك إنه عذر جل معك وتصيا شبابك وتصيا ما عذر عذرك ولا بدن وحويان عذرك الله يرهضه سيدان دين تأفهمي أفهم هداد أفهمي ويد قلباتها ما شباب بصير بسوداد ولا بصير تبضي هذا هذا ولا أنا وحن جعل هذا كل إنسان ديت أنا أفهمي إن أفهم أنا هذا أفهمي وينا ويقلدين أوكي تاسو مدة الله هذه وحويان والدولة الرجية قبصي أويلي سلام وأركا يا وأركا هذا أركا ودين وقلدنتي ما أريكم إلا ما أرى وحن أركا يون أركا فرعون بيدي هي طلبات ودات كله لا أنك وحن هاجر الشافعي وكبحنا وحن نقول حنبلية قول ما نقول أنا كورس كوين إمي كلام حقوق نقول الشافعية هذا نبريت الحنبلية صوفية نهي سلفية نهي كان نهي وحاهم باقي أنصار يا مركب وطن بيسا هدي لكن لبس لاضو ولا جارو سو يوم شافعي ورانا رأيي جوا صح لكن وقلدني كريا رأي أحمد نمحوري رأيي جوا صح لكن وقلدني كريا هل كان مركان هل كان جارنو شباب وحنا نقول يانو وحانا وحبترين إسكاب بابايان شباب وفكرة شباب وعذر فكرة ده ماها عذر هو بسيط وماها مدة كلا هل كدم بينه وإيمان إزاي شباب والصناعة وإحنا سميه ويا شباب أنت اللي سميها نروك يعني أنا كنا داعش يا سميه داعش إما جاي مرة داعش ما بقى داعش هذا ما جرته أيام تيجي ويتو دجال كغزة وكراعي وهي هذين سيدي داعش من حماس وبابيرنا لكن حماس دي داعش ماها حماس بكعروس داعش وفكرة حلو ما بين كري حماس إما معود بالحين بيدن ما تقول ما زي لا ما بين كري محوجي لسداسي وحوجي وحوج هذا إن داعش أي حماس اللي كردوين داعش ولا سمي لكن حماس لما سمين أوكي شباب ولا سمي أيان تلا الربعين شباب لا ترتيرنا ولا ترتيري دولا يا ترتيري دونا كوي نو سمي يا ترتيري دونا كوي نو سمينا وحي فديان دينا عكري كفديان بدعس يا دينا عكري بدعس كفديان كوا بي نو سمي كوا أنا ولا سو ديبي سينا لوجو مشغولين marka ina shabaab wax way ka dhigeen shabaab wax inuu arko waxaan arkaa cudur yar oo dhow laakiin cudurku wax weeyaan waa tadarrufka siyaasiga iyo diiniga waa xadjirnimada diiniga iyo siyaasiga waa cudurta waa jalanjiga saddexaad afar
jalanjiga afraad ee haysta wax weeyaan ikhwaani fillah annaku markaan gudaha isla fadhino waxaan lahayn hab aan u noolayn habkan u noolahay waa la evoluyeeyaa may waan guurnay waxaan u guurnay hab aan lahayn habkii aan u noolayn waa ka soo guurnay mid aan lahayn baan u guurnay dhexdiina ma jirto walidaalika qofka Soomaaliga marka u fiirsatid imika waa imsa waa saddex Soomaali هليا بينيا المركي قالوا أنا أسكن متطرفة وحاجة الصومالي يوروبيانا صومالي عربة يا صومالي صوماليا صومالي يوروبيانا هاجر مركو فكرة ويوروبيان حكوا لي هذا هو مرينا قالنا دون إنه هالمريكا نونو سان فرانسيسكو كانوا فكرنا طلياني هنقرنا إنجليز هنقرنا هذا من هندي لهن نجمدين ما نقرنا صار بقى صومالي كلا جرا حكوا لي ورد أنكو أصل كينو عرب ولا يمكو حد عدي مرتين وحن هلا جرين له كل أودي أوروما نويمانيا كل أودي كل أمحارا نويمانيا كل أودي ما عرب بانه درية محمد بانه قريش بانه هكذا كتاجنين ومارة الدارود إسماعيلي يوم مالي أخي جراحني هم بعد ما يوحى مجران در أوروما لنوضي وين والله قبل خلاص ورقاسي ومحس صومالي محن كل عرب أجرا صومالي وحاجرا عدانا يا صومالي صوماليا مركا أنا وحنا ربينا صون نقولون دحتك صون نقول وحنا هينا كصون نقول عربت الدين تام وداقنا قال كان بلادنا ماذا وداقنا لك عدنا بلادنا وحي بلادنا كده حي ونقدر حينا إسلام كل وحي ونقدر حينا أنا كعرفت ونقدر حينا أنت كلا نقدر حينا سأدر ولهذا بمرت وحنا ربنا إما كده يرد واحد رجع ساقف كبدن ومرت ما أنت أردن إسكت عرب إمام ودي رأس سوق هذا يا خميس رب كل جنة يا سيد عرفت أصعني عادل بقى كنا يا أروح أنا وادقن أبي جهل بوحنا وسنجري أبي لهب وسنجري waxaan waa dhaqan adeer diin ma hada doonaysa dhaqankii gudootiga qaadade anagaas yahay dhaqanka galbeedka gudootiga go'i qaadade waa ka dhaqanku dhaqankeedu waa ka khamiiskana waa iska qaadanayna waan la wadaagnaa shamiishka shaarkana waan qaadanayna waa bilaadada keentay laakiin ha iga dhigin waxaasi wax aan dadka kale ka duwanahay gabadhii baa laba ah gabadh baa jirta rag galbeed baa noqotay gabadhna carabeed baa noqotay bariga anagu dacwadii diinta bilowday guriga markaan iska imanno aqalka albaabka garaacayno hablo inaga yaacay jaga meel ay geliyo aqalama ma haynaba guriga aqal afar daasada gal halkee ku dhuuman kartaa miskiinada maxaa adeer la ordi xijaabkaaga iska xidho salaam alaykum iska warad odaygi ma jooga ha uu jooga ma jooga ma jiro khalaas salaam alaykum ifadhiisi haday doonayso shaysi nabiga cuntadooda cuneen maxamed iyo gabadh iyo maartay odaygeegi iyo cuntadooda cuneen inta aqal wada fadhiisteen adiga dhaqan kala soo qaatay oo baxsanaatri waxaasif diin ma aha dhinacii kale tan qaarna habliga waxay noqdeen habla cadaan u fikiraya laba hablood baan haynaa laba wiil baan haynaa dhaqankiina waa dhibaato weyn oo indhaha jirto waa taxaddi weyn taxaddiga shanaad ee haysta wax weeyaan meesha milo siyaasiyiin lama ogolo waxaan haysta wajaadka taxaddiga shanaadi wax weeyaan waa qaadka weeyaan runta ma rabnaa Soomaali ma soo toosaysa ilaa geedka qaadka ka tashato annaku دراسة كوسا من مرة جيبوتي دتك دليل رضع بقول كيف سديتن ويقاضيان وحنا نقابل تقنا صباحا وحنا عنا دور دبدي صدق نحن ولا عنا بينك قفك قوم شقتي دراسة عن هيو وحي شاكتا دتك الدنيا ده وحنا قطرت ما ساعد على شقة زمها إمساج شقيان قوضك كمسوي شقيان مركي قوض مسوي على زوجة ودرد عرض وعادي خليش واحد شقيان شلات دقيقة ما أنتي شلات بدر السودان تضوص من البشر 3 دقيقة مركب يعني جيبوتي الصومال مثال شقيا صفر ماني زيرو حفيصة حمر تجي يرجسيه يجيبوتيه لا تمك على سواق لا يا رجل زرنا الفديو dadka ma shaqaysan karayaan way hurdaan bajaad ku xulay dhibaatada caafimaadka iska daa kansar baa laga qaadaa kansarkii daanka kii maarata carabka kii hunguriga ka iska daa da'dii soo yareeyay 45 konton dadku way wada gaboobeen jaalaan jibhayna waa istajahadka qaadku waa dilaawayaan imigana mukhadaraadka kala ku biireen khamrigii baa Itoobiya waxa noo yimaada anwaacdiisii oo dhan maxaa kii maxaa loo jiray ya tajid bil barqis wana dilaa dalidu cabiya wanuugayaan waxa jira screen dad waaweyn wadarada qaarkood geeskeena Afrika screen dad ma taqaana waa isagiyo de screen waxa laga soo dhigay wala soo barifay baalkii marka sanaadku kale hooyo screen dad waaweyn iga iibi screen baad u moodaa
وإن أنت دجدي وين أسكر ودجدي وعبي يقف تاسينا waa maxay waa ta ugu dambaysa jalanjiga ugu dambeeyo aanu aslahay guduhu inaga haysta halka gudaha inaga haysta wax weeyaan adduunka waxa jira dad yar oo hogaamiya dadka badan adduunku waa sidaa laba meel baan tusaya Mareykanka waa shacab 400 milyan ku dhaweyka dadka hogaamiya waa 60,000 qof 60,000 oo bini aadana Ameerika hogaamisa Hollywoodka fadhiyaan Congress-ka fadhiyaan lacag leeyihiin mufakiriin bayhiin hantaktan baa lagu sheegay Fukuyama lagu sheegay Kissinger lagu sheegay dadkaas la dhageysana qofka lama dhageysto dadkaas hogaamiya dadka inta kale wala riixaya inta kale ka shaqo tagaan marka su'aal ma ka maqan elite ba ka maqan laba hanti waa tamaanta doctorkii Abdullah iyo uu sameeyeen tiktanka waa wax loo sameeyay waa inay jiraan dad elite ah nuqba ah alabeen ah dadka hogaamisa laakiin barbareega Soomaalidu waa maxay barbareega Soomaalidu waxa weeyaan kulligeen waxaan nahay elite baan isma hogaami karaan markaas isma badhageysanaba wuxuu sheegayaa amba wax sheeg karaa muxuu ka hadlay amba ka hadli karaa muxuu qabanaya amba qaban karaa muxuu yiri amba oran karaa muxuu qoray amba qori karaa kulluna خلاص isku baan noqon marka taasina waxay keentay waa challenge ugu culus ee naastaan halkii aan taaganahay wax weeyaan ma jiraan dad looga haray aqoonta iyo isbedel sameynta dadka baana sameeyay intaas waa tii gudaha dibadda aanu imanaa saddex baan ka soo dhigay challenge-ga koowaad dibadda inaga haysta waa juqraafiga weeyaan political juqraafiga weeyaan waa dhibaato culus oo aan fahmi laana ilaa maanta nin baa jira aan aad u akhriyo caraba oo dhada Jamal Hamdan waa Masri weeyaan wuxuu ku takhasusay juqraafiga siyaasiga nadareed buu baleeyay dawladdu waxay ku duntaa juqraafiga waxayna ku noolaataa juqraafiga taas fikradda waa masay waa theory ku soo leeyahay theory gaabaan qaaday waxa ay wuxuu Masar buu ku qaatay wuxuu Masar ka dhiman kartaa wuxuu Masar waligeedna badda Mediterranean lagama dilin dhinaca Liibiya iyo Afrikana lagama iman laakiin Masar waxay ka cabsootaa Niilka iyo dhinaca maartay Palestine labadaaba waligeed ba loogeema jiray labadaaba laga dilaa labadaaba juqraafiga sameeya Soomaaliya juqraafiga maxaa sameeya qofka Soomaaliya juqraafiga maxaa sameeya anu waa labayna waa badda oo fahmi laana badda aan dul fadhina bad caadi ma aha waa bad dunida isku haysato marka laga yimaado badda casba mid laga soo bilaabo ilaa Indian Ocean iyo Ethiopia amba diida amba doona waa labada challenge juqraafigan waa ka Ahmed Guri dagaalkii u qaaday Ethiopia ku qaaday maxaa soo ceshaday buurta soo celisay weligeed Soomaali iyo Muslimka buurtaas way kori kari waayeen Abasiniyana weligeed badda way ma kari waayeen iyaduna badda waan u diinay iyaduna buurta way noo diiday okay maxaa dhacay maanta adduunku wuu bislaaday biseelkaas wuxuu keenay inaan buurta nabad ku tagno iyaguna badda nabad ku yimaadeen ma xoogina ku qasaan ay qasaan dad baskala badda annakii markaa waxa imika inoo taagan baddeeni ma noo badbaadaysaa mise noo badbaadayso badii ma badbaadaysaa mise ma badbaadayso ayaan dad markaan ka hadlay min baa waraqad biyo soo qoray wuxuu sheekh inuu ku bareeyo badii waa dibisay buu waxaan arkaa argeysan nooga sida badteeda waxaan ku yiraahdaa ku bad ma iibin markii imaaraadka uu la galiyana aniga ninka saaxiibkay Britain doon daara badda war bandar murga arkan badiyo la iibiyay markii dambana labadii iska laalaado baan baddeedii waa ka soo ceshanay inuu laga qaataan bay dooneen oo markii hore badda inay qaadanayeen mid arkay biya may mu arkay markii hore marka anagu waxaan rabnaa wax weeyaan baddaasi waa problemkeena weeyaan waa arinta koobaad juqraafiga in haysto weeyaan arinta labaad taxadiga labaad aad buu adeegay taxadigaasi waa challenge annaka inoo gaara iyo Afrika iyo Carabta iyo Muslimiinta oo ay bataqaan waa imaaraadka weeyaan waa challenge gaara weeyaan imaaraadka waa inaan isku waafaqno waxba inaan u arkay imaaraadka dawlad caadi ah iminka inay bay weydiinay dawladda imaaraadka horta maxay doonaysaa dawladda imaaraadka waa saddex dawladda imaaraadka waa dawlad wadiifiya shaqa loo xil saaray ragga adduunka xukuumay shaqo u dhiibeen shaqadii way qabataa way ku darsatay intii loogu talagalay maaha in bay ku darsatay intay ku darsataa ka badan intii loo dhiibay ya dadku waxay dhaheen qadarna shaqa loo dhiibay laakiin qadar shaqa ku darsato dhinac yaroo positive ku dartay waxay tiri adeer soo mar rabtaan inaan inii shaqeeyo annade waan shaqaysanay oo maxaa ka shaqaysanay dee muslimiinta waxbaan u qabanay carabta waxbaan u qabanay adigana waan ku soo shaqaynay كان يقول هذيك أنا أقول شقيني لكن وعن كل شقيني إيش هذا
سواء ماشي إنك بدل بقمني وحنا ما نقدر سني بدل ولذلك نيل لا هذا مفكر استراتيجي نفيس لا هذا الكويتية هي مرة كل ما بدحوينها إمارات جزائر وحكى صور نقضيها هيد مال لا هذا أفغانستان وحو صوت دوني وحنا مرة قرقرك يحبوا يأدوا جعله مركب وكيل هاي كلمتين حول وحنا سو إنديني إذا ماذا إمارات كوسة وقد تقالمين أفغانستان كديجا مركب وحول أضيق أضيق كفتما وحول والله كبرت العيال والله كبرت العيال بالعيال كم وين هذين بقول وحن سو إنديني يقول قالوا مريكا نقضي يا روسيا يا فرنسيسيو وحن سو إنديني إذا ماذا أفغانستان جو سيد وتقال كلام مركب نكان قرقر بكو أوجين إن هذا قرص سيد إندي كوكو أوجين مركب سيد بلا متباشي بطة وجدته وكله بدها وسط حرمه لمبر 1 بدأ يجا وكله وجديس إن أو يسوي قعنت كل دقة بدها دوني دوران لحدن تضبطهم ودم بو قعنت كوهاي عمك بدوه لبو أفرتن وحوليه هاي دكتور سجاله صدح تضبط بقول أو كن أو مركبات دوني ده كده قاقة أيوه رأى بقول كي بشان يتبن حاولها ألعبتها لقو قاضو إمارات عليه شركة دبي بالي ما إمارات معها مواني الدول العالمية شركة دبي بالي أنت مركز لقي ما دوحوا ليه صدق مدون باركو إنه صقره إنا أنو حيو إيه إنه إجت إدافين أو ترتك إلى الجلين ولو كودو صدق إنه بربرو واحد حي مجرم مركز أنك كوي أقلادي وحوليه بباديان كوي أقلان وينا وبربرة يعني waxa burburka laga galiyay ma baa galiyay marka in wal burburiye Suudaan wal burburiye ninka raad xamidiisa dagaalamay Suudaan iska sameeyay ninka xaqana uu burburiye Djibouti maalinta is khilaafeen ay kala xaman qaateen kalmad buu yiri wuxuu marka aan maxkamadaha dhameeyo waxaan ku celin doonaa wadanka yareen ka soo saaray meel gaajo ah qarniyadii dhexe qurun wasta manashki in ku celin doonaa marka imaaraadku talabada wataa doonayso arinta saddexaad imaaraadku ay istaraatiijiyin ay doonayso wax weeyaan in ay shaqo weyn la shaqaysato wadanka Israa'iil iyada la shaqaysta iyada la saaxiiba marka ana hawlaan ku qabanay adiguna hawlay qabo baa la isku dhaafsaday adduunka meelaha la isku dhaafsaday tanaa kamida jalanjiga saddexaad ee adduunka naga socdo waxay waana la qaybinayaa Soomaaliland waxaan ka cabadeynaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya diraasad aan ma loo akhriyay waxaan loo qaybinayaa 5 gobol Soomaaliya 5 baa loo qaybinayaa Djibouti ma qaybtami kartaa waa la qaybinayaa Djibouti la baa loo qaybinayaa يا قايبين يا وحالي أدونك أفريقيا يا عربتا دب دمانو أجينا شقدودا جارهان مسلميتا وحن كده جينا سيديتن يأفرتوا أفرضا سيديتن يأفرضا سيديتن أفرتوا وده واحد كم بذا السودان شان اللي مدوي بحضير كفر السودان أفر نيم كلا قايبين يا وحالي الصوماليا جيس كأفريقيا بيننا جنب هذا وحن كده جينا أفر بانو قايبيننا أفر قبل وأفر قبيلة يوم كلا قايبيننا جيبوتي وحالي الله بها كدينا Soomaaliya aan fara ka dhigana aan qaybinana istaraatiijiyada xitaa Itoobiya hore uga qayb gashay okay qaybistaana la qaybinayo waa khuddo aan ogeyn oonan ka warhayn waa jahlaan adag ina qaybistu ay socotana maxaa ku garanaya laba shay bay tusaysaa dhamaanteen maalintii doorashada habeenkii dhooto Saciidani Ilaahay ma agama ka taariidina Saciidana ku soo baxay madaxtinimada doorashada dadkeenii oo dhani waxaad moodaysaa inay dawlad weyn oo baalka dhacday oo baad moodaysaa Soomaaliland saas oo kale to Jubaland Maxayland wadalandada ma noqon moogtahay landadaasi waa waxa uu yiri Malla Zinaawi Soomaaliya ha ula dhaqano reero ina ula dhaqmin dawlad ahaan wuxuu yiri oo kale to Soomaali oo dhan baa sidaa xataa Djibouti marka la dhaqmayno reer ahaan oo la dhaqmayno qabiyaarad baan ku dhaqmayno marka challenge-ga in haysta wax weeyaan waa taas weey in la qaybiyo annagu ogeyn maxaan kaga baxaynaa bas laba kalmo baan gabagabay waxaan soo ka baxnaa waxaan kaga baxaynaa habeen dood baan iyo nin saaxiibkay ah xasila aqrin kitaab nin Daawud Ogol uu qoray ninkii rasaara kan jiray meeshani Turkiga wuxuu qoray 30 sano ka hor intay dawladda gelin wuxuu qoray kitaab u bixiyay fil umq al-istiraatiiji si istiraatiiji hanu fogaano oo aan ka fogaada aragta sadxiga marka waxaan ku bixi karnaa inaan yeelano aragti istiraatiiji oo ka baxno sheekada caadiga ah لأن الشقة اللي نقص عطوا مشقة عادية ما شقة عادية
marka waxa ka bixi kara dad si istiraatiiji u fikiraya waa lambar 1 taasi lambar 2 waxaan ka bixi karnaa arintaasi dadka elite-ka ah ee tigtaankan oo kala ka shaqeynaya inay barnaamijyo soo bandhigaan barnaamijyada dadku u baahan yihiin waa laga daalay ma aragtay sheekadii caadiga ahayd waan ka soo daalay 100 sano waxaan la soo waday harimaadigan waa la soo waday oo soo ciyaarino soo gabiyayno waxaasi macna ma leh wax aragti ah oo cusub hal imano oo ummadeena u bandhigno ay ku badbaadayso insha Allah ta'ala